فيصل على وراءه أيام دويت كهاللي ماشي اللي يرهده هرجيس وله طب هي لا سجال بقول أما كون كله دو أفر بقول هاي تاي إسكراب بالله عنو دياله يسوق مأركوا فيصل على وراءه مركو إسكراب كلاس عنو ذاكيو وتشوفوا يقول يوجو حيونه كون قراها برلمانك اللي جت وتشينه هذا الكيس إنك كهاللي يقول لي هاي أنت برعي هرجيس لو صوّله أي عسكرتي دحنا داوع ugu dhamaatay oo ku wada dhimatay taastay in raaciyo qodob ay aad ugu dhagan yihiin nimankan godkooda dabada kula jira ee SNM hadeer gabalkoodii dhacay oo inta badan dhahaan majeerteen baa waxa sameeyay majeerteen sida majeerteenku waa niman goba iyo duul garaad badan waa niman angaajadana rageeluna u dhalay sallallahu alayhi rasuulullah sallallahu alayhi wasallam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً مرة وحنا سلام يا عد كسته ومقع عيدي موقع كرنا يسا جارهان بيله SSC يهيل وراء. أول خطبة يا موقعين الدرس تاجو يرى افتيميو أركتله إذا إلى هاتي قطب وSSC يو وله هذا هيل وراء. حالا يا SSC يهيل وراء. هل جنكو كوي لما متشوفه وحير باينو هاي ما هنا وحي حي مرنا هو كما دال ولي وهقدي هاي هل كاسان كغا بخايا نيرغينا waa garanaya nacasna loo sheegi maayo qodob kale isagana inaan yaradu istaagan rabayo Faysal Ali Waraabo ayaan dhaweyd ka hadlayay meesha la yiraahdo Hargeysa ole dad baa yaala 900 ama kun ku dhow 400 ay tahay iskaraab baa la saanood yaala isagu ma arki waayay Faysal Ali Waraabo markuu iskaraabka la saanood arkayo oo jinku ugu riyoonayo ugu waxyoonayo kuwan golaha baarlamaanka laga joojinayo hadalkiisa ninka ka hadlay ee uu leeyahay inta burco iyo Hargeysa lagu soo wado ayay askartii dhaxda dhaawac ugu dhamaatay oo ku wada dhimatay taa isagu Faysal ma arki waayay qodobka saddexeeya waxaan rabay inaan ka hadlo nimanka culimada ah ee reer waqooyi ee u arkay maanta dibka anaga iyo SNM kala gaaray digasho iyo ku diiqdiiqsi u arkay oo ku aamusan kuna qanacsan qaarkoodna ku faanayaan oo nin Maxamed la yiraahdo oo ka mid yahay Sheikh Maxamed nin sheeganayay oo suurad culimo leh kulay dadna culimo ah waxa kuma hadleen oo ku jaasjaasayo lahaa soo baaciyo ka soo baaciyo Muqdisho kaana waa yara dur istaagaya kaasoo waxaan idin sheegayaa culimada reer waqooyi iyo waxgaradka reer waqooyi shalay marka dulcad iyo daroor u qaxdeen ee baahida iyo shubanka iyo dayacu idin dhameeyeen ee idinku aad dhamayseen culimada iyo waxgaradka iyo isimada reer Sool waa kuwii dulcad iyo daroor idinka keenay ee idin heshiisiyay ee nabadiina ka shaqeynayay berrina adduunku xareed ma aha lagu dhimaayo berrina waxaan filayaa inaynu dib u arki doono baahida iyo mid la mid ah idinka oo qaba waxaan aaminsanahay oo in muuqataba ama aan arkaa in mid yar iyo mid weyn iyo mid culimo iyo mid caamo aba ay arinta istay in raaciyo qodob ay aad ugu dhagan yihiin nimankan godkooda dabada kula jira ee SNM hadeer gabalkoodii dhacay oo inta badan dhahaan majeerteen baa waxa sameeyay majeerteen sida majeerteen waxaan maranayaa waxa ka gabiyay nimanka majeerteen la yiraahdo Cabdiwaxid Gamadiid nin la yiraahdo oo nin abwaan oo reer waqooyi marka gabaydiisi baa waxa ku jirtay majeerteenku waa niman goba iyo duul garaad badan waa niman angaajadana rageeluna u dhalay waa niman gabay aad u dheer buhaayo waan ka xumaynayaa wuxuu ku soo gabagabeeyay intuu geelu dheer yahay loodiya gaabana oo arigu intaas ay khalqiga guud mareen la isma gaasiro marka majeerteenku waa kuwa idinka oo reeri doore aad saa uga gabiyeyseen taasina saasan leeyahay qolada reer boorane waxaan leeyahay idinku Sheikh Xasan baa idinka hadlayo waxba kale idin ma qaban karnee meydka kabaha lagu dultumanayaa tihiin ilaahay idin gargaaraan idin leeyahay
إن شاء الله وأنا إذين هالجميع أنا قانا إنسان نولاين دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.